xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku bogaadiyay dadaalada arrimaha doorashooyinka dalka ee uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale shirkii golaha wada tashiga ay ku yeesheen magaalada Muqdisho taa oo xal waara loo gaarayay kuraasta xildhibaanada golaha deegaanada waqooyi. xildhibaanada ayaa inta uu kulanka socday kaga dooday halka uu marayo arrimaha doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi iyagoona soo dhaweeyay doorka hogaamineed ee ra'iisul wasaaraha ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa kulanka ka hadlay. waxaan ugu mahadcelinayaa doorka shariifka ahaa uu ka qaatay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane injineer Maxamed Xuseen Roble oo ka badbaadiyay dalkan inuu dagaal sokeeyo ama dhiig ka dhaco. barakallahu fiika aan leenahay waxaan rajaynaynaa doorashadu way socotaa wayna bilaabatay inay inta dhimanna ilaahay nabad noogu dhameeyo aan wada taageerno nidaamka doorashada ee shariifka ee socoto. waxaan taageersanahay oo aan cod dheer ku leenahay guddiga 7 ay isdoortay iyo habraaca doorashooyinka haddaan nahay waqooyi waxaan diyaar u nahay inaanu ka qayb galno doorashada oo u soo horeeya aqalka sare. waxaan u hambaliyaynayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa halkan uga hambaliyaynayaa sida wanaagsan ee uu daadihinayo ee uu wado barnaamijka doorashooyinka. waxaan leeyahay mar kale walaalayaal aanu hogaansano shuruucda aanu hogaansano sida wanaagsan ee dadka kaleba doorashadooda u wataan. xildhibaanada gobolada waqooyi kama bedelna xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wixii habraaca ay leeyihiin kuwa kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leeyihiin ayaa kuwa kalena leeyihiin. waxa kale oo jira waxa la leeyahay muran baa ka jira guddiga dhexdiisa. guddi waa doorasho waxaana la isku doortaa hal dheeri baa la isku doortaa shakhsi magacaaban oo guddiga ka mid ahina in la yiraahdo adigu cod ma lihid oo dibadda joogaysaana waxaan u maleynayaa wax sharciya ama wax xuquuq oo qofna gaar u leeyahay qofna gooni qofna aan lahayn qofna uu leeyahay inay la jirin. ugu dambeyntii shirka ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa ka oo warbaahinta la wadaagay xildhibaan guuleed. waxaanu soo dhawaynaynaa oo aanu bogaadinaynaa guud ahaanba doorka hogaamineed ee shariifka ah ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku hogaaminayo arrimaha doorashada dalka gaar ahaan kaalinta mas'uuliyadeed ee uu ku leeyahay hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee gobolada waqooyi. 2 waxaanu taageersanahay heshiiskii siyaasadeed ee golaha wada tashiga qaranku ku gaadheen Muqdisho 27kii bishii shanaad 2021 kaasi oo lagu furdaamiyay tabashooyinkii ka dhashay heshiiskii 17kii bishii Sebtembar 2020 isla markaana si gaar ah xal loogaga gaadhay arrimaha doorashooyinka gobolada waqooyi. Cabdulqaadir Fantastic warbaahinta qaranka.